askarta iyo hubka maalin walba la sii daabulay shalay iyo daraad iyo usbuucida hore muxuu gada lagu daabulay shalay iyo maanta maxaan ku yiraahdaa hiiraan lagu sii daabulay daraad intii ka horeysay maxaan ku yiraahdaa dhuusa mareeb lagu sii daabulay maxaa loo daabulaya loo geynayaa doorashada in lagu soo dhaco waay maamulada meesha joogaahay aamuslaantooda waxaan u qaadanaynaa hanaloo keena askar waxa aan ku dhacnay inay ayaguna dhaheen madaxweynuhuna uu sidaas rabo ma suurowdo ma dhacayso suurtagal sina kuma aha marka arrintaas waa khatar hadda ka horna waa sheegnay annaga qadiyadda aan madaxweynaha uga ra'yi duwannahay doorasho keliya ma aha dalka inuu khatar ku jiro waay midnimadiisii inay khatar ku jirto waay in maxaan ku iraahdaa wadadana ay ku dhammaato meel aan fiicnayn waay madaxweyne xasan sheekh kun jeer buu mahadsanyahay kun jeer baan u mahadcelinaynaa tiisaa ahayd shakhsiga madaxweynaha keliya intuu fakaray ku qalcay dulmigaana loo samaynayay ee muxuu ahaa soomaali laga sharciyeeyey gardarrada ahaa ee keligana lagu dhacayay adhaxda ninka ka jebiyey oo waxaa weeye baray madastar aan xaq u lahayn waxaa weeye na siiyey weeyeen ninkii nasabka gala oo magacaa ogaadeen sheeganhaya ama ka absame ama ka kuumade ee nasabka galaana taa wuu garanayaa marin habaaminta bulshada lagu hayo oo la shidayo kaadh qabiil amaba mataqaanaa dad weerar ku saa ma jiro cid weerar ku saa Jubbaland qof kasta oo ogaadeena fiidiyogan caawa in la ii gaarsiiyaan rabaa waliba qoralkooda loo diro hawiyaan caawa farta ka saara fiidiyogan waxa la wixii hawiya iyo waxa la wixii samaha jecel Soomaaliya aan rabaa fiidiyogan inay ii qaadaan oo reer ogaadeen u diraan caawa iyo meelaha joogaan iyo qoralkooda u diraan fadlan oo codsi waxa rabaa abtiyaashay caawa inaan la hadlo waxa isleedihiin xil guntada waa hawiya xasan shiiqu u dareynaya oo walaalkiisa oo maaragtay uu rabaa inuu dhiso isleedihiin waxaan kugu dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan jeclaa caawa inaan wadanka ugu horeysaan madaxweyne inaan gaartaan aan jeclaa Ilaahay wuxuu igu og yahay inaan idin hagardaamaynin abtiyaashayow waxaan jeclaan lahaa caaway abtiyaashay oo magacan ka soo jeeda hooyaday ka dhalatay inay baarka ugu sarreeyo Soomaaliya qabsadaan laakiin hagardaamada la inku wado ma u jeedin anigu u jeedaa laakiin siyaasaddan ku dhex jira fiidiyogan ii qabta ammaano inku yahay ii sheer gareeya meel walbaba ii geliya fadlan hataa dad aqoon-yahanaa u dira oo nimankaan ogaadeen ka dhashay fadlan abtiga Axmed Madoobe inaan necba haddaa u malaysaan ma necbi korkiisa xataa saas in loo taabta ma ogoli in la ciila ma ogoli laakiin midda ogolaan caawa idiin sheegaya xasan shiiq haddaa u malaysaan garab inaanu ahay oo isleediin xil guntada waa nin hawiya xasan shiiq u dhisaya hooyaday aan ka dhashay oo uurka 9 bilood igu qaaday naaskeeda aan nuugay qof aan qiimo adduunka la dhigaya ma jiro xasan shiiqna hooyadiis qof adduunka la qiimo dhigaya ma jiro nin walbana hooyadiis waa u qaali abtiyaashay waxaan rabaa nimanka maantay banaankaas jooga oo wada jiraqsanayo raba inaan ra'iisul wasaaraha xilkiisa laynka cayriyo oo meeqaamka aad gaarteen in weligiin soo gaarin hoos inay inkaga dhigaan rabaan oo wada jiraqsanaya horta waa ila dhasheen magacyahoodan idin kala sheegi maayo aniga waana taqaanin nimankaas maanta waxay rabaan ogaadeen waxay og yihiin ogaadeen hadduu madaxweyne Soomaaliyeed taabto weligood dambe gow inaysa siinin oo daacad yihiin oo wadanka ay dhisi doonaan ay og yihiin weligeedna ogaadeen waa laga ilaalinaya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha weligeed badaarood kale ka ilaalinaya hawiyaha kale ka ilaalinaya caawa runtii daacada rabaa inaan u hadlo abtiyaashay nimankaas odayaasha hadlay waa niman wax fahansan laakiin idaacaday ka hadleen idaacadu mar walba joogta maana hal mar ay hadleen anigu waa ku soo celcelinaya waxaan rabaa abtiyaashay baarka ugu sarreeya Soomaaliya inay gaaraan Xamse Cabdi Barre garab istaagan taliyaha ciidamada lugta loo dhiibay ogaadeen 5 lafood oo waaweyn iyo wax lagu daray way 5 lafood oo waaweyn 3 lafood oo waaweyn ayaa dawladda hadda ku jirta ninkan Xamse Cabdi Barre waa reer Cabdillah wallaan dheer asaga Axmed Islaam waa isku jufo ninkan la yiraahdo ninkan ciidamada lugta loo dhiibana waa nin Cabdallah wallaan dheer waa nimankan goday dir dhabay wax ka degan goday inay degaan jecla ninkan ee loo dhiibay isheeg gorgor guutooyinka waa nin maaragtay isheeg
jufo weyn oo ab ogaadeen oo ka dhasho oo magaceedii aan laqsana jufadii aadaan uga xumaa abtiyaasha shantii jufo inaan kala garan waayo shantuba waan aqaan shantaas saddexaas jufo oo waaweyn nimanka ka dhashay saddex ka mida dowladday ku jirtaa laba waa wada dhasheen waa axmed maxamed islaam iyo xamse cabdi barre muxuu ku diiday nin reer cabdillaah axmed maxamed islaam oo ra-iisul wasaare ah asagoo ka hooseeyo maamul goboleeda inuu dhiso uu hawadaas geeyo ou dhaafiyo muxuuse u garan waayey xasan sheekh maxamuud inuu ogaadeen daaroodkii kale wejiga u diirtay oo ogaadeen oo miiska soo saartay oo raggii codka ugu shubay oo madaxweynaha ka dhigana uu yiri ra-iisul wasaaraha xukuumadda ogaadeena u leh muxuu ku garan waayey axmed madoobe muxuu ku garan waayey amaalkii loo galay ogaadeen waa ogyahay axmed madoobe muxuu haraatiyey xasan sheekh oo u eedaysan puntland oo ra-iisul wasaarena ka weyday wax alla waxay ka rabeenna ka waayeen oo puntland intaas uga go'an tahay muxuu axmed maxamed islaam u garan waayey wuu ogyahay laakiin dantiisa shaksi oo kursiga oo ku fadhiyo inuu ku sii fadhiyo intuu nool yahay ayuu go'aansaday qof kale ogaadeenna uusan saxaan u samayn ujeeddada runtaa waa taas ciidamada jubbaland ilaalsha xamse iyo ninkaa la yidhaha axmed madoobe waa idiin sameeyeen waa laba noo reer cabdillaah kuwa kaloo ciidamada militariga xukumana waa niman ogaadeen oo kaloo jufooyin kalaa laba jufa ah waxaan idiin sheegayaa marka makaahil haddaan hela ninka ciidamada lugta oo ninkan la yidhaahdo isheeg guutooyinka gorgor xukuma makaahil ha waa jufo weyn oo ab ogaadeen shanta jufo waaweyn oo ogaadeen u dhashay saddex ka mid ah dowladda ku jirta cabdulle iyo makaahil iyo reer cabdillow saddex nin oo laandheeraa saddexaas nin oo laandheeraa kaasoo horjeesatay oo qabiiladii waaweyneed saddex ka mid ah axmed maxamed islaam oo aftiyo macaanow inaad ka hor timaada ma ahayna inaad la macaamishay oo caqli maskax kula dhaqanto ha maskax inaad kula dhaqantay waxaa igu maqaalaa oo hadda igu maqaalaa nairobi in looga wada yeero ogaadeen kala gobol ay u dhigeen ay dhaheen haddaa ka maqnaatid gacantaada way ka baxayaan waxa ku jiro dhan ogaadeen haddii aan nahay waan ka bixinayna gacantaada axmed maxamed islaam annakaana meesha kugu hayn jirnay mana diidi karo wuuna tegayaan ra-iisul wasaare xamsana wuuba qaataba amarka galabteeda hor u dhoof okay ciidamadii ugu badnaana way isu soo dhiibayaan oo axmed maxamed islaam oo kalsooni darro ma aqaan meesha ka timid raggii la islahaa waa ku kalsoon yahay oo weliba wada ogaadeen oo qabiil kala ahayna isu soo wada dhiibayay oo kooxba mar imaanaysaa ciidankii u soo diray difaacada way is wada dhiibayaan calaa kulli xaal runta iyo xaqiiqda iyo dhabta markaa caawa isla aadno abtiyaasha waxaa rabaa baarka ugu sarreeya soomaaliya inay gaaraan laakiin hoose u sii socdaan doon degaysay saaran yihiin doonta degaysoo biyaha dhexdeeda ku degaysa ha fuulinina ka dega midda biyaha sabaynayso korkeeda fuula abtiyaalo fadlan codsi wey dhista ninka xamse cabdi barre la yidhaahdo waa idinka codsanayaa xamse cabdi barre dhista waa nin aqoon-yahana caalamkiina bartay madaxweyne soomaaliya hadda hadduu usoo istaaga adduunko dhan uu garab istaagayo bangiyada caalamka intuu rabo ka soo qaadan kara intuu rabo kula tartami kara ninkuu la tartamayo fadlan abtiyaalow dhista waa nin la bartay adduunka dhammaa bartay bangiyada adduunka ragga deynta wax ka cafiyo ku jiraa ragga cunaqabataynta wax ka qaado ku jiraa ragga wax walba soomaaliya usoo qabto ku jiraa abtiyaalow waa inka codsanayaa dhista ninkaas odayaashaas hadlay oo ogaadeen waa u mahad celinaya laakiin odayaal keligood wiilal la-aana oo wiilashii dhagaha la-yihiin oo halnin usii jeedo ma rabay odayaasha la garab istaago aad iyo aadaan idiin salaama fariintaan ii qaada caawa waxaan qaadanaa 5,000 oo dollar wax shaqo ah oo ummadda Soomaaliyeed aan u qabanana ma jirto sidaas waxa yiri xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka tirsan baarlamaanka federaalka baarlamaanka lagama qabto 5,000 mishaar aan qaadanaa dad badan waxay u maleeyaan mishaarkiin in aad u badan yahay sax waay waa badan yahay laakiin waa dawladda qaybta kaliya ugu dakhliga yar baarlamaanka markii wasiirada iyo agaasimayaasha iyo dadka mashaariicda haysta loo fiiriyo iyo madaxtooyada iyo ra'iisul wasaaraha markii loo fiiriyo ayagaa naga mishaar badan laakiin dadka Soomaaliyeed waxaan ugu qabanno ma leh su'aasha dadka Soomaaliyeed is weydiinayaan waxay tahay marka askarigeena Soomaaliyeed aad u jeedaan muuqaalkiisa ee dhaxanta taagan ee qabowga taagan ee kuleelka taagan ee habeen iyo maalin aan seexanaynin waxa uu qaataa $200 waxa ummadda Soomaaliyeed u qabtaa shaqo culus wuxuu sugaa amnigeena wuxuu sugaa deegaankeena amnigiisa iyo sidoo kale inuu dawladnimada ilaaliyo isagoo intaas oo shaqo qabta ayaa waxa uu qaataa $200
aan kugu celiyo hadda waa $200 xildhibaankayna 5,000 ay qaata ee wiigii 2 maalmood shaqayn la'ana waxa uu leeyahay xitaa wax shaqaa bulshadeena uma qabano taas oo muujinaysa cadaalad darrada lagu hayo ciidanka qalabka sida ee Soomaaliyeed oo u baahan in loo kordhiyo xuquuqdooda si amnigeenu uu kor ugu kaco hadda soo wanaagsanaanayo warbixintan ayaan rabaa inaan ku iftiimino isbedelka weyn ee u dhaxeeya labada dhinac dhanka shaqada iyo dhanka xuquuqda adiga haddaba muuqaalkan daawanayo haddii aad doonaysid in wiilashayna geesiyaasha aan xuquuqdooda kor u qaadno muuqaalkan nagala qayb qaado oo Lexar siina share garay xalay xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya gaar ahaan golaha shacabka ayaa sheegay in mudanayaasha golaha shacabku ay xuquuq ahaan u qaataan $5,000 taa bedelkeedana aanay jirin wax shaqo ah oo ay u qabtaan qaranka iyo ummadda Soomaaliyeed wuxuu sheegay in baarlamaanku uu yahay goob la iska fadhiyo wax saameynana aan ku lahayn siyaasadda dalka wax shaqaana aan lagu qabanin waxa uu sheegay inuu hadda isagu ka fikirayo inuu isaga baxo baarlamaanka haddaba marka hadalka xildhibaanka ee sidaas laga amba qaado su'aasha dad badan oo Soomaaliyeed ay isweydiinayaan waxay tahay sidee buu qofka askariga ah ee muwaadinka ah ee qabowgan aad aragteen waqtiyadan jira iyo kuleelkii jiray waqtiyadii la soo dhaafaba taagan habeen iyo maalin soo jeeda uu mushaarkiisu u noqon karaa $200 halka xildhibaanadu ay qaataan $5,000 wasiiradu ay ka badan yihiin agaasimayaashu ay ka badan yihiin xitaa shaqaalaha rayidka ah ee dawladda ee xafiisyada iska joogay wax shaqo aan qabanin ayaa qaata mushaar ka badan kuwa askartu ay qaataan taas oo u baahan in dawladda federaalka iyo dadka Soomaaliyeedba ay dib u eegis ku sameeyaan si weyn loogu doodo xuquuqda ay qaataan ciidamada ammaanku qofka askariga ah $200 markuu qaato ee uu guri kira ku jiro oo xaas qabo caruur u joogto waxbarasho ka rabaan libis ka rabaan gurigiisa bil rabo waalid wax ka rabo waa dareemi kartaa intay la egtaa $200 inaanay kafayn karin waxaas oo dhan oo baahi ah oo askariga uu leeyahay waa bini aadan caadiga oo annagana lamida xildhibaanada lamida dadka kale ee qaata xuquuqda badan sidaas darteed waxa looga baahan yahay inay dadka Soomaaliyeed u kacaan inay ka wada qayb qaataan sidii ay xuquuqda askarta Soomaaliyeed kor loogu qaadi lahaa isla markaana xitaa wax looga dhimi lahaa dadka kale haddii maanta madaxda qaranka ee madaxweynaha leh ee ra'iisul wasaaraha leh ee xildhibaanada leh ee wasiirada leh ee shaqaalaha rayidka ah ee dawladda leh laga dhimo xuquuqda tirada badan leh ee xaddaafka ah ee ay qaataan waxaan aaminsanahay in 100% ay kor u qaadi karto taas bedelkeeda in xuquuqda loogu daro mushaarka askarta sidee bay suurtagal ku tahay ninka generaalka ah ee taliyaha ah ee generaalka ah iyo qofka shaqaalaha caadiga ah ee dawladda ee gurigiisa iska jiifa habeenii maalin ayaa isku shaqaa hadda ninkaas generaalka furunta taagan ciidanka maamula ee loogu talagalay inuu amnigii qaranka iyo sirti dalka uu ka shaqeeyo iyo nin yar oo gurigiisa jiifa ayaa isku xuquuqa waad dareemi kartaa in meeshaasi cadaalad darro weyn ay ka jirto askari iska badaawa warkiisa xitaa kabtan iyo laba xidigle iyo meel iska dhig generaalka ku xuquuqa taas oo u baahan ama cadeynaysa in markii horeba gacan bidixayn lagu sameeyay askarta haddaba maxaa kaaga baxay hadalka xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame nala wadaag aragtidaada muuqaalkana Lexar oo si share gareey